sanadku markuu ahaa 1997 Eric Yuan oo ahaa arday Shiinees oo dhigtay jaamacadda Shandong University of Science and Technology ayaa waxa uu jeclaaday gabar laakiin nasiib xumo gabadhii uu jeclaa ma aysan deganin magaalada uu isagu degan yahay markaas waxa ayna ahayd mar walba oo uu rabo inuu soo boqdo gabadhaas inuu tareen sii raaco oo uu sii socdo muddo 10 saacadood kharash badan iyo waqti badan oo ka baxo maalmaha kamid ah soo gurigiisa jooga ayuu wuxuu ku fakaray Allah haduu jiri lahaa adeeg ku ogolaanaya gabadha saaxiibtahay in aad gurigaaga jooga aasi maqal iyo muuqaal aad isku maqashaan fadlan daawada kanaalka Sirgaar hadaad hore ugu taxanayd like saar hadaad hadda ku cusub tahayna like iyo subscribe saar magaca waaye min ku soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad kanaalka Sirgaar halkan ayay ka bilaabanaysaa qisada shirkadda Zoom ee waayadan coronavirus-ka lagu jiro aadka loogu faa'iiday taasoo dadka u ogolaatay ayagoo guryahooda jooga in kulamadooda iyo shirarkooda gaarka ay qabsadaan waliba muuqaal video call oo tayeys aad ay u tayo sareyso aan u soo noqono Eric Yuan shahaadadii labaad ee jaamacadda markuu uu qaatay wuxuu isku dayay inuu aado wadanka Mareykanka gaar ahaan inuu aado harada loo yaqaan Silicon halkaas oo ku taala haradaas oo ku taala state loo yaqaan California taas oo xarun u ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee dhanka tiknoolajiyada sida YouTube-ka Google-ka Facebook-ka Twitter-ka iyo shirkado kale oo aad u tiro badan laakiin nasiib darro safaaradda Mareykanka ee wadanka Shiinaha waxa ay fiisada u diiday Mr. Yuan markii koowaad ayuu dalbaday waa loo diiday markii labaad waa loo diiday markii saddexaad waa loo diiday markii afraad waa loo diiday ma uusan quusan ilaa markii sideedaad waa loo diiday xataa laftirkeeda laakiin ugu dambeyn markii sagaalaad ayuu gacanta ku dhigay fiisadii markii uu gacanta ku dhigay fiisada 1997 wuxuu aaday wadanka Mareykanka markii uu Mareykanka tagay luqadda Ingiriiska Mr. Yuan waxba ma uusan ka garanayn sidoo kale waxa uusan waxba ka garanayn dhaqanka wadanka Mareykanka luqadda Ingiriiska si loo qoro ayuu xoogaa bartay wax uu shaqo ka helay shirkad loo yaqaan oran jiray WebEx taas oo horumarin jirtay video calling-ka shirarka ah halkaas ayuuna shaqo ka bilaabay wuuna ka shaqeyn jiray muddo aad u dheer sanadku markuu ahaa 2007 ayaa shirkadii uu ka shaqeyn jiray waxa gatay shirkadda loo yaqaan Cisco kadib shirkadda Cisco markii ay gadatay wuxuu kamid ahaa shaqaalihii raacay shirkadda Cisco waxa uuna kamid noqday shaqaalaha ugu sarsareeyay shirkadda Cisco mishaar aad u badan meesha waa uu ka qaadan jiray 2011 markay ahayd Mr. Yuan hal mar ayuu wuxuu ku baraarugay horumarka xawliga leh ee ay sameynayaan taleefanada gacanta lagu qaato waxa uu isku dayay in uu sameeyo ama uu sameysto shirkad isaga oo gaar ah wax uu sameystay shirkadda Zoom laakiin hortiisa waxa yaalay loolan aad u adag waayo suuq waxa ku jiray shirkado aad u waaweyn oo hawshan uu rabo inuu bilaabo hore iyagu u waday waxaana kamid ahaa shirkadahaas Google midka kamid ah Skype kamid ah shirkadii uu ka soo tagay ee Cisco waa sidoo kale kamid ahayd iyo Microsoft sidoo kale waxa caqabad ku noqotay Mr. Yuan sidii uu mashruuciisa uga dhaadhicin lahaa maalgashadayaasha dabar adeeg badan uu sameeyay iyo isku day tiro badan waxa uu ka dhaadhiciyay maalgashadayaasha inay mashruuciisa maalgashadaan asaga iyo kooxdii la shaqeynaysan waxa ay soo aruuriyeen lacag gaaraysa 3 milyan si ay mashruucooda u bilaabaan sanadku markuu ahaa 2013 shirkadda Zoom waxa ay daah ka qaaday adeegeeda video calling-ka 2 bilood gudaheedna waxa ay heshay 3500 oo shirkadood oo macaamiil u noqotay sidoo kale 2 sano kadib oo ku beegan 2015 waxa ay heshay macaamiil gaaraysa 40000 oo dad oo isticmaala adeegeeda macaamiil 40000 oo adeegeeda isticmaala si fiican waa dabcan waa horumar aad u wanaagsan weeye markaas loo fiiriyo sidoo kale shirkadda Zoom waxa ay leedahay ama ay adeegeeda ku jira in 500 oo qof dad gaaray hal mar ay video calling ku wada hadli karaan sida shirarka waaweyn oo kale dhanka kale Mr. Yuan waxa uu saamiga ku leeyahay shirkadiisa waxa lagu qiyaasaa 22% sidoo kale Bloomberg waxa ay ku dartay 200 ee qof ee ugu hantida badan adduunka ayay ku dartay Mr. Yuan dhanka kale sidii ay yiraahdaan dhibaato markii ay dhacdo dad kale ay faa'iido u tahay sanadkan ku jirno xanuun coronavirus dunida daafeed markuu sida baan ugu fiday dhaqaalaha adduunkana uu dhibaato weyn u geystay shirkado waaweyn oo hanti haystana ay qarka u fuuleen in ay fallisaan shirkadda Mr. Yuan ee Zoom aad ay uga faa'iiday barnaamijkaas dadkii guryaha ku xirnaan aad ay uga faa'iideysatay magaceedii iyo maalkeedina kor ayay u qaaday ayadoo ogolaatay dadkii guryaha ku jiray ee guryaha ku dhex shaqeynayay in ay shaqaalahoodii iyo maamulayaashooda in ay si toos ah oo video call tayadiisu sareyso ay kula xiriiraan sidoo kale xukuumadaha waxay u sahashay in ay shirkooda ku qabsadaan barnaamijka Zoom-ka sidoo kale ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta dadka sidoo kale ayadana waxa ay barnaamijka u fududeeyay in ay si toos ah ay video calling uga wada hadlaan intay rabaan ha ahaadeen ilaa 500 qof ugu badnaan
sidoo kale 9 iskuul ayaa isticmaala adeegan hadeertaan oo ku kala yaala 20 wadan kuwaas oo caruurta iyo dadka meeshaas wax ku baranaya maadaama iskuuladii ay u xiran yihiin coronavirus halkaas ayaa waxbarashada looga gudbiyaa dhanka kale shirkadda Zoom waxa lagu eedeeyay in aysan wax mas'uuliyad iska saarin ilaalinta macluumaadka macaamiisheeda kadib markii marar badan shirar lagu qabanayay adeegga Zoom ay soo jabsadeen kooxaha kombiyuutarada jabsada halkaas oo fadeexo iyo ceebo waaweyn ay ka dhaceen walow ay shirkaddu raaligelin adag ay ka bixisay ayna ballan qaaday eedayntaas iyo khaladkaas in uusan mar dambe soo noqonayn sidoo kale eedeymo kale ayaa loo soo jeediyay shirkadda Zoom dawladda Mareykanka ayaa loo soo jeedisay eedeymaha waxaa kamid ah shirkadda Zoom in lagu eedeeyay in ay u shaqeyso xisbiga shuuciga ah ee dalweynaha Shiinaha ka taliya in ay jaajuus u tahay oo ay wadanka Mareykanka ay u joogto sidoo kale laamaha ammaanka dawladda Mareykanka qayb kamid ah ayaaba waxa ay gaarsiiyeen eedeynteeda in gebigeeda laga joojiyo wadanka Mareykanka arrimaha markii laga tago shirkadda Zoom inta coronavirus lagu jiray faa'iido aad u weyn ay gaarto horumar aad u weyn oo ay sameysay mid dhanka dhaqaalaha iyo mid dhanka magaceedaba ah sidoo kale waxa dhacday in shirkadda Facebook ay soo qalab qaadatay maamulaha shirkadda Facebook ayaa ku soo fadhiisay Facebook waxa uu sheegay inuu tartan la galiyo shirkadda Zoom-ta waxa uu yiri waxaan furayaa barnaamij loo yaqaan Message Room kaas oo ilaa iyo 50 qof ay halkii mar ku wada hadli karaan laakiin barnaamijka Zoom halkii mar waxa ku wada hadli kara ilaa iyo 500 oo qof laakiin markii uu ku dhawaaqay maamulaha shirkadda Facebook in uu barnaamijkaas daafurayo shirkadda Zoom qiimaheedu suuqa waxa uu hoos u dhacay 10% sababtoo ah suuqa waxa la soo galay shirkad ka magac weyn ka hanti badan dadka isticmaalna ay kor u dhaafayaan 2 bilyan oo qof maalmaha soo socda ayaa noo sheegi doona shirkadda Zoom meesha ku dambeyn doonto ma sida Facebook ayaa gadan doonta gebigeeda sida WhatsApp oo kale iyo shirkadaha kale ee ay Facebook galatay mise waa ay u baabadhigi doontaa oo suuqa ay kula dagaalami doontaa fadlan mar labaad iyo mar saddexaad kana agsigaad ku soo dhawaada wada hadaad hore u taxanayd like saar hadaad hadda ku cusub tahayna like iyo subscribe saar